aad bay ii qasbeen aabba adiga hadda waad i badbaadisay adaa meeshaan igu imaaday qorsheyga laakiin taas ma ahayn inay dhacdo sideen ku awoodi karaa inaan adiga wejigaaga fiiriyo misana aan ku dhaho aabbe ma awoodi kara inaan ku dhaho aabbe runtii قندوز waxtiga tiigsimaad mala wiilkayga wiilkayga waan ogahay dembigan inaadan gelin oo dusha lagaa saaray wixii tegay inaad isku mashquuliso aad ka fikirtana wiilkayga looma baahna madaxaaga waa inaad kor u qaaddaa mustaqbalkaagana aad ka fikirtaa wiilkayga aabbe ma og tahay cabsida ugu badneed ee soo wajahda inta aan kaa soo maqnaa midday tahay adigoo aan kaa ducaysan inaan geeriyoodan ka baqay cabsi kale ima soo wajihin cabsideeda ugu weyn middaas ahayd aabbe wiilkayga bini'aadankoo dhan qaladka waa ay galaan laakiin qaladkaas ay galaan mar dambe dib uguma noqdaan sababtoo ah waxay ogaadaan waddo qaldan inay mareen sidaas ayayna dad wanaagsan ku noqdaan adigana qof wanaagsan ayaad noqonaysaa dhibaatooyin fara badan ayaad la kulantay wiilkayga sax iyo qaladna waad kala baratay maanta wejigaaga oo dhan murugo ayaa ka muuqata hadalkaagana qiiro iyo cabsi fara badan ayaa ka muuqata wiilkayga gunduus waxaad tahay wiil wanaagsan aniga kuuma soo barbaarin wiilkayga inaad aniga inta hor timaadda madaxana hoos aadisid soo moogid indhahayga nuurkooda inaad tahay intaasoo keliya maahane waxaad tahay wiilkayga curadka ah ee aan raba aniga booskayga inuu buuxiyo markay dagaal noqoto waxaad tahay garabkayga midig wiilkayga qabiilkayga marka saddex loo dhigo meel ka mida adiga ayaa u dhigma wiilkayga ibnu nil ayaa tahay wiilkayga waana kugu dhaartaa madaxaaga weligaa hoos aadin مسلسل كان وحو قال ويهي مقدشو كيبل تي في